عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيرت الشرف تلوهيدي سلامي سلام كده ما أنتوا حروا وحياة بدل إنه شروا مركي إنه وجهين إنه مقطع باسبور سوماليا إنه كروين باسبورين فربلن أمم قوالد أسير ولي أو كتير إلا يو صدق يو أفر وطن إن شاء الله هذه اللي قال سادي أذكر سبت جرال كان ASM معكسمت أما معكسمت سيرتها سكرات إن شاء الله. اوكي ودن كان اوجد بنين وحو ku yaala koonfurta Afrika waqooyiga Afrika ku yaala wuxuu Soomaali baniin wuxuu ku yaala waqooyiga Afrika free visa 90 days waa hada xaysiinis baniin waa wadan asaga iska yar oo fiican oo ku yaala Afrika. Okay, Bolivia asaga wuxuu baa visa on arrival visa 90 days. Bolivia wuxuu ku yaala Brazil wadan ku dhagan visa on arrival hada rabto in adiga Bolivia aado waa inaad visa ku qaadataa airportka dhexdiisa ama visa u dalbataa by electronic macnaha waxa online ka darbeysa qaababka adiga Turkiga ku aado Soomaalida loo xaray Turkiga. Okay calamaha waxaan u soo helay calamaha gududka micnihiisu waxa waaye wax ma jira doo xiran yahay wax ma xareysan kartid waay. Okay, Burkina Faso waxa waaye visa on arrival waay oo 3 maalmood macnaha hal bilood waay visa on arrival oo 3 maalmood waay oo airportka qaadanaysid marka diyaarada adiga aad koraysid. akhyaarta sharafta leh hadii journalkan akhyaarta sharafta leh kulay subscribe noo saara laagtii waa inuu muhiim hadii Ilaahay na gaarsiiyo. Okay, marka hoos u soo baxmo Kempfiji hadaa rabto inaad aado on arrival visa on arrival waa visated on arrival waa Kempfiji on arrival waa visated waxaa qaadaysaa airportka laga siinayaa Kempfiji. Okay, Comoros asin wuxuu ku yaala galbeedka Afrika ku yaala galbeedka Afrika wadanka Comoros wuxuu visa siinaa Soomaaliya visa on arrival asagana 45 maalmood oo diyaarada dhexdeed visa bas Soomaaliga passport hadii janaalkan ku cusub tahay insha Allah noo sii shargaray. Okay, calaamadan guduudka calaamadan yellow-ga ku soo heray calaamadan yellow misna jaala ee waa Kosovo waa Kosovo code delivery waa macnaha magaciisa cost macnaha passport Soomaaliga waxba asnaftirkiisa kisto ma laga aqoonsana laakiin uu ogol yahay ma laga aqoonsana. Okay, Djibouti visa waa visa electronic waa visa damaqash macnihiisa visa electronic waa Dominatica macnaha waxa waaye Congo waa agteeda ku taala Congo agteeda ku taala visa free waa walaati ku maalmood waa Dominican Republic isna waxa waaye Dominican Republic macnaha visa u baahan yahay total laakiin hadda uu xiran yahay visa request visa u baahan yahay uu xiran yahay naga dhaaftaas. Okay, Ethiopia visa on arrival visa 90 days visa Ethiopia Soomaaliya waxa lagu ogol yahay by electronic inaad ku xareysato. Okay, Gabon waxaa ka hadlaynaa hadda cilaamooyinka guduudka iyo cilaamooyinka buluuga directed on arrival visa viisooyinka waxa lagu ogol yahay diyaarada macnaha airport inaad ka qaadato. cagaarkan hadaa aragtiin viisooyin macnaha free visa macnaha labada wadan nabada ka dhaxayso free visa waa. Okay, Gambia ma sha Allah wadan oo Cape Town u dhow waa Gambia South Africa ay ku dhagan tahay 90 days free visa waa Gambia. Okay, ya ku soo heray marka Ghana asagana visa on arrival waa Ghana marka akhyaarta laakiin markii visa free waa leeyahay waxa laga baahan yahay in adiga hubsato oo telefonkooda wacdo Google inaad gasho telefonkooda wacdo dhahday visa passport ka sabata in ku aadi karaa. Okay, hoos noo soo wada marka Guinea visa on arrival waa Guinea asagana wadamaha Afrikada wadamooyinka yar oo kamid yahay Guinea laakiin kooxaha ka soo baxan Guinea asina visa on arrival waa 90 days waa dilaan gaarsiyo. Okay, Guyana macnaha visa on arrival waa isna Guyana laakiin wadamahaas badana Soomaalida ma aado. Haiti hadda maqashid waxay ku dhagan tahay Canada iyo Mexico
in Kennedy iyo Mareykanka dhahay Haiti waa wadan bad ku yaala jasiirad ah oo Soomaali badan ku nool oo baasboor wadan Afrikaan ah oo laakiin Mareykanka xadud la leh oo wadan kali 25 milyan ku nool oo Haitian ah marka 30 maalmood 3 bilood waa free visa oo elborka ka qaadayst okay hoosna soo in Lebanon Soomaalida badna ma aado waxay ku taala dhinacaan Aasiya ku taala visa on arrival way oo 30 maalmood Lebanon okay Lesotho visa Lesotho waa wadan aad boqortooy u ah South Africa ku dhagan oo in la imaadan ee fududa South Africa daarabta inay ka soo gasho Soomaali badan ee ku nooshahay Lesotho visa waa 14 ber oo lagu ogolyahay visa electronic inaa ku soo xareysato okay Madagascar waa on visa on arrival visa معناه visa on arrival معناه waxa way visa on arrival diyaarada dhexdeeda elborka dhexdiisa qaadaysa visa معناه ina electronic horna electronic ina usoo dalbato markii koowaad hore okay waxaan u soo heray Malawi asana visa waa visa electronic way oo 90 days Malawi asana waa wadan Soomaali ka buuxo laakiin waa wadan iska faqiir ah okay Madalsafaria waa visa on arrival for 90 days Somali passport okay Mauritania asagana Mauritania waxa waaye visa on arrival waa laakiin tirada ma ku qorna visa on arrival macnaha visa direct diyaarada Mauritania waa diyaarada dhexdeeda ka qaadaysa ma elborka dhexdiis ka qaadaysa cilaamooyinka guduudka naga mootay Niger بري فيزا on arrival بريدا معناه أساس مفهوم لكن نيجر سومال ما بعده بالو ودن عد وفي عم بالو وكيالو كونفورت أمريكا فيزا on arrival واي 90 days صدام معلومات وفري بالو أوكي فلسطين إذا معناه فلسطين سومالي ذا وقتنا فيزا فري واي أو عادي أو معلومين لهم بس برسومالي أوكي يوغندا visa electronic oo 3 maalmood 30 maalmood visa electronic oo 30 maalmood ah Uganda waxa noo soo Senegal visa on arrival way oo 30 maalmood ah Seychelles wadankii oo loo xiray Soomaalida badan oo la dhahay burcad badeed way visa request way 90 days visa naxariistii ku soo bixay 90 days gudaheed Seychelles okay hoosna soo wada markaa South Sudan visa waa South Sudan visa waaye Sri Lanka iyada waxa waaye TI macnaha waxa la ogolyahay kuwa oo diblomaasiga bas la ogolyahay TI hada maqashid diblomaasi waa diblomaasi bas la ogolyahay anaga diblomaasi mani mogt okay free visa Karendis wadankan Aasiya ku yaala asaga naga daaya Soomaali badna ma baadabo Suniman wadanka magaciisa waxa la yiraahdaa Suniman visa waaye Suniman asagana oo caadi iska gali kartid visa macnaheedu waxa waaye hadaa maqasho waa visa electronic in adiga soo dalbato waaye Togo asagana visa on arrival 7 maalmood 7 maalmood oo visa on arrival 30 days bisa ku noolaysa marka visa u dalbad kadib Tofala iyadana waxa visa on arrival for 30 days marka insha Allah hadii la gaarsiiyo inta kale Zimbabwe dag wadamaha United States wadamaha waxa wadan ku aadi karto maaha ilaa iyo xujooyinka iyo su'aalaha adiga ka soo baxda hadda korna dawladda Mareykanka Donald Trump aan qabateen saaray kadib hadda waa laga qaaday baasaboorka Soomaaliya ما شاء الله ويبسايت كان وحو كعابيا إن أديك أكو أجاكرتو وحول بأديك أعرفت إن شاء الله إن جرنال كعدي أكو عصب تاعي سكرام صار أصحابتها لو ذاك أدي لنا جالسيو.